systemka in la dagaalo waa dhibaato maamadan Soomaaliyeed ee seexanayso bartamaha caasimadda Sweden Stockholm barxadda weyn ay seexatay dhowr habeen marka arkay waxaas dhahay Soomaalidu ka gaabisay inay caawiso maamadan Soomaaliyeed gabadhan Soomaaliyeed ee xijaaban ee saligeeda goobtu yaalo dharkeedii yani qalabkeedina meeshu yaalo markaas dhaa maxaa Soomaalidu ku dhacay marka muuqaaladeeda soo daawadana waxaan soo arkay qaraabada inay caawisay Soomaalida inay caawiyeen xataa ayda afka ka sheegayso inay dad ugu yimaadeen goobtaas ay joogto hadda ay cunto u keeneen shuyuuqdii xataa magaalada u yimid xataa meesha caawiyeen أنا الدولة واحد صار معنا ولا بيقولوا دولة ضدك جوريها دجنو ساني جوري إيديد دولة ضدك عدالة واي ينالا يسينو سالو إسلا الدولة ده ساني نالا شيء إيديد تالي الدولة ده ساينا بروبلم كي يعني هو هي دولة ده nothing else marka systemka ayaa ku adag sidoo kale hooy ma heli karto shaqana ma heli karto sida ay sheegteen dhibaato waa haddii ay shaqo awlooysa jirtay haddii ay yani ama aad ka tagtid ama laga soo buriyo systemka waxa ku galaya marka qof shaqaysanaya inaad ahayn oo marka way kugu culusaanaysaa inaad shaqo kale heshid laakiin waxaan rajeynaynaa horta gabadhan Soomaaliyeed in ay dis caawiso bulshadana caawinaad ay siinayaan ay qaadato hadda tan la joogo Sweden way adag tahay qof xijaaban saligiisa wato in la arko وهيابيسين هذا لا قار يعني كهذا قار كو عنصرينتا نكان dhageysti wuxuu leeyahay hal ajir marno det här sektorer som svenskar ska arbeta i och som har tagits över av invandrare de sköter sig de betalar skatt men vi vill inte ha dem där så att nej jag tycker att väldigt många som sköter sig och betalar skatt ska åka hem shaqooyinka hadda ay qabtaan ajaanibta anaga ayaa ku filan oo qofka Swedishka ah inuu ka shaqeeyo aheed shaqooyinkeena marka way naga qaateen marna hal ajaaniba ayuu leeyahay systemka markaas adag ayaa la dagaalayna cunsuriyiintu ay soo xoogeysanayaan sidoo kalena waxay rabaan ku hadaaqayaan naciibka intii ka qabaan waxay leeyihiin gabadha hadday xijaaban tahay in lagu qasbay marka waxaan rajeynaynaa marta gabadhan Soomaaliyeed Allah u fududeeyo sidoo kalena waxaan rajeynaynaa qofka markuu ku adkaado systemka oo meel shaqo ka heli waayo hooy ka heli waayo inuu bedesho magaalo kale iska aad waa kali kartaa tuulooyin kale waxaa jiro shaqooyin yaalaan sidoo kalena hooyga saaid ugu fudud yahay marka waxaan rajeynaynaa inuu Ilaahay u saqiro dadka Soomaaliyeed qurbahan jooga qaasadda Sweden waa adagtaa systemka hadda la joogo soo kalena doorasho ayaa soo socoto arka ina codeysiin way dadka yani Sweden degan sanadkan waa ina codeysiin bisha September marka waa ina codeysiin oo u codeysiin xisbiyaasha taageerayo dadka ajaanibta ah